السلام عليكم kusoo dhawaada channelkeena Afga Media intaan muuqaalkana gudgalin marka hore like inoo saar fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar mahadsanid nin oday ayaa maalin u arkay haweeney oo ilmo yar hambaarsan oo ooynaysa waxayna dhahaysay aawiya ilmahan wadnaha ayaa laga hayaa qalin degdeg ah ayuu rabaa haddii kale wuu dhimanayaa qalinkana waxaa la yidhi $1 anigana ma heli karo waa agoon aabihiina wuu dhintay fadlan aawiya ninkii aad buu u nahay wuxuuna siiyay lacagtii codsatay gurigiisa markuu yimid ayuu reerkiisa u sheegay kadibna qolkiisa ayuu galay reerkii TV-ga daawanayay ay warka waxay ku daawadeen booliska oo qabtay haweeney ilmo yar ku garaabata dadkana lacag kaga qaadata iyadoo u dambeysay nin ay saaka lacag badan ka qaadatay reerkii baqaylo ku dhuftay oo odaygii u yeeray waxay yidhaahdeen waa lagu siray hadda TV-ga laga soo daayay ilmaha wadnaha kama hanuunsanaynin wuu nool yahay islaanta ayaa sidaas ku garaabata odaygii wuxuu yidhi alxamdulilah reerkii iyagoo yaaban ayay odaygii ku yidhaahdeen waaba lagu dhacay miyaadan ka hanuunaynin odaygii wuxuu ugu jawaabay waxaan lacagta u bixiyey inuu ilmaha yar badbaado mar hadduu nool yahay oo caafimaad qabo waa inta aan rabay oo aan lacagtaas u niyeystay Umar bin Khattab radiyallahu anhu wuxuu yidhi waxaan maqlay rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo leh niyadda ayaa saldhig u ah hagga alle mudnaanshaha in qofka laga abaalmariyo amalkiisa iyo in kale u filba wixii amalkiisa ula jeedo hagga niyad ayuu leeyahay waxa kasta waxay ka bilowdaan niyadda haddii qofka niyadiisu tahay in amal wanaagsan oo alle ugu dhowaanayo sameeyo dar alle waxa u sadaqaysto dadka caawiyo mar walba ma shilaan karo mana dareemi karo in khasaare soo gaartay ama in la khiyaanay wax kasta aad la bahaysid ama aad samaynaysid u niyeyso in alle ugu dhowaanaysid u samee alle dartiisa